warfidiyeenka Aljazeera ayaa sheegaya in iska horimaadyo hub culus ay ka soo cusboonaadeen subaxnimadii maanta oo Axada waqooyiga iyo galbeedka caasimadda Ukraine ee Kiev oo maalintii afraad ee duulaanka Ruushka iska caabinaysa. Magaalada caasimadda ee Kiev ayaa habeennimadii xalay waxaa laga maqlayay dhawaaqa rasaasta qoryaha darandooriga u dhaca iyo sidoo kale dhawaaqa siidhiga oo laga maqlayay magaalada in ka badan hal mar, iyadoo madaafiicda qaarna ay ku dhaceen dhismayaal ku yaala bartamaha magaalada oo ku dhow xarunta dowladda. Warfidiyeenka Aljazeera ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay ka shaqaynayaan xoojinta iyo ilaalinta marinada iyo albaabada laga soo galo dowladda iyo dhismayaasha muhiimka ee magaalada caasimadda ee Kiev, iyadoo la filayo inay yimaadaan dagaallo iyo iska horimaadyo ku dhow. Warfidiyeenka Aljazeera ayaa soo sheegay in qaraxyo laga maqlay magaalooyinka Obalan, Hostomel, Bucha iyo Borjyafiki oo u dhow Kiev. Dhankeeda duqa magaalada Falsikiev ee koonfur galbeed ee caasimadda Ukraine ee Kiev ayaa sheegtay muuqaal lagu baahiyay internetka in magaalada ay ku dhaceen gantaalo Ruushka uu leeyahay, taasoo keentay inuu dab ka kaco xarun saliideed. Dhankeeda wasaaradda difaaca Ruushka ayaa ku dhawaaqday in dhammaan cutubyadooda dagaalka ee Ukraine lagu amray inay weerar ballaaran ku qaadaan dhammaan meelaha muhiimka. Wakaaladda wararka ee Ukraine ayaa sheegtay in qof dumar ah ay ku dhimatay 60 kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta ka dhacday dhismo dabaqo ku yaala gobolka Kharkiv ee xadka Ukraine iyo Ruushka. CNN ayaa ku warantay in Ruushku uu sahay ciidan oo aad u culus uu soo geliyay xuduudka Ukraine si ka badan labadii habeen ee hore, laakiin shabakadda ayaa xaqiijisay in waxqabadka difaaca hawada ee Ukraine uu ka wanaagsan yahay sidii ay filayeen sirdoonka Mareykanku. Safiiradda Ukraine u joogta Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay weerareen xarumaha xanaanada carruurta, iskuulada, cisbitaalada iyo xarumaha kale ee rayidka, iyadoo intaa ku dartay in Ruushku uu qabsaday 80% goobaha rayidka ee magaalada Shaleta. Waxay sidoo kale tilmaantay in Ukraine ay ilaa hadda gaadhay khasaare 198 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 1000 qof. Safiirka ayaa waxa ka dhacay Ukraine u aragta masiibo bani'aadantinimo oo aad u weyn, iyadoo ku baaqday in cunaqabatayn dheeraad ah lagu soo rogo Ruushka lagana saaro bulshada ilbaaxnimada leh. Dhankiisa madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in Ukraine ay meesha ka saartay qorshihii weerarka Ruushka. Zelensky waxa uu intaa ku daray khudbad muuqaal oo uu jeediyay in rabitaanka dadka Ukrainiyaanka ee difaaca Ukraine ay fashiliyeen waxa uu ugu yeedhay xaaladda qabsashada, isagoo ku nuuxnuuxsaday in muwaadiniintiisu aysan diyaar u ahayn inay dalkooda ku wareejiyaan cidnaba. Geesta kale afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in madaxweyne Joe Biden uu oggolaaday in la siiyo gargaar militari oo dheeraad ah Ukraine oo qiimihiisu yahay $350 milyan, taasoo ka imanaysa kaydka militari ee Pentagon. Kirby waxa uu sheegay in gargaarka dheeriga ay ka mid yihiin kuwa ka hortaga hubka fudud, rasaasta iyo hubabka kale ciidamada si ay u taageeraan ciidamada Ukraine ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka ka dhanka ah Ruushka. Waa sida uu hadalka u dhigay. Kirby waxa uu intaa ku daray in kaalmadan dheeraadka ay ka dhigayso wadarta guud ee taageerada militari oo Mareykanku siiyay Ukraine $1 bilyan. Geesta kale shalay Sabtidii Faransiisku waxa uu sheegay inuu u diri doono hub difaac iyo shidaal dalka Ukraine, isagoo intaa ku daray in ay Paris sidoo kale ka hortagi doonto warbaahinta Ruushka ee faafisa macluumaadka marin habaabinta ee dagaalka Ukraine. Wasiirada arrimaha dibadda Midowga Yurub ayaa maanta Axad ah yeelan doona kulan muuqaal ah si kor loogu qaado taageerada militari ee ciidamada Ukraine ee ku wajahan duulaanka Ruushka, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Joseph Borrell. Isla Sabtidii shalay xukuumadda Berlin waxay ballan qaaday in Kiev ay siinayso 1000 gantaalaha lidka taangiyada, 500 oo gantaalada Stingerska iyo madaafiicda Hauserska. Sidoo kale wadamo ay ka mid yihiin Belgiumka iyo Holland ayaa sheegay inay kaalmooyin shidaal siin doonaan ciidamada Ukraine. Griiga ayaa ugu baaqay Ruushka inuu joojiyo weerarada cirka ee uu ku hayo Ukraine, isagoo ku eedeeyay inuu dilay ugu yaraan 10 Ukrainian oo asal ahaan ka soo jeeda Griiga. Waxaan ugu baaqaynaa federaalka Ruushka inuu si degdeg ah u joojiyo duqeymaha cirka ah iyo dhammaan falalka ka dhanka ah dadka rayidka, ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Griiga.